marka muuminka doonaya ilaahay inuu u dhawaado ma quusto ma quusto haniyad jabin ha quusan dib ha u noqon socow Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu ayuu nabigu maalin arkay isagoo ooyaya markaa buu nabigu ku yidhi Abu Bakr maxaad looyaysaa ii sheeg wuxuu yidhi labadan aayadood ee suuradan suuratu idaa zulzilat al-ardu zilzaalaha labada aayadood ee ugu dambaysaan eegayo waxba labada aayadood kamay tagin nabi Allah taabaan la weeyaa buu yidhi man ya'mal mithqala dharratin khayran yarahu mithqala dharra waa waxa isha bini aadamku qabato waxa ugu yar oo khayr qofka sameeyay baa ilaahay yidhi abaalka uu heli doonaa inta in la eego dambiga qofka sameeyayna abaalka waa heli doonaa Abu Bakr as-Siddiq wuxuu yidhi labada aayadood baa igu oohiso waxba kamay tagin nabi Allah waxa ku badbaadayna annaku markaa buu nabigu ku yidhi walladhi nafsu muhammadin biyadihi ilaaha nafta muhammad ay gacantiisa ku jirta ayaa ku dhaartay law lam tudhnibu haduusan dambiba iniga dhacayn inika ilaahay intuu adduunyada inaga kaxeeyo ayuu ku abuuri lahaa kuwa kale oo dambi intay galaan ilaahay dambi dhaaf ay dambiga intay ka weydiistaan ilaahay ayakana dambigooga u dhaafo maxay ka dhigan tahay marka haquusan inba culimadu ka sheekeeyaan xajku u soo qasday markuu ihraamkii markuu xidhay ee uu soo dhaqaaqo xujiijkii dadkii xujaydii uu soo raacay ayaa waxa la bilaabay marka talbiyadii baa la bilaabay labbayk allahumma labbayk labbayk la sharika laka labbayk markaas korkiisa laga leeyahay la labbayk wala sa'dayka xajkaaga iyo safarkaaga aad u soo dhaqaaqday ilaahay kaama aqbalayo lagama aqbalin dushiisa laga dhawaaqaya marka mid ka dambeeya la maqashiyay kiiba joojiyo ku yiri iska had maxaanu hadhaabuu ma maqlaysid jawaabta xad maqashay marka tiraadi labbayk allahumma labbayk korkaaga laga leeyahay la labbayk wala sa'dayka xajkaaga iyo cimradaada iyo sacigaaga iyo safarkaaga lagama aqbalin baa laga leeyahay ma maqlaysid iska had hasdalna lacagtana iska hayso qarashkan inuu ka bixinay markaas uu ma maqashay ha hadaba aanu maanta oo kaliya ma maqal buu yahay 720 sano oo hore u xajiyay jawaabta waan maqlayaa buu yahay laakiin ma harayo buu yahay waayo halka haddaan ka tago haddaan ilaahay ka hoos dhaqaaqo oo isaga mar walba aan weydiisani waayo inuu toobada iga aqbalo halkee kaloon tagaa bal ii sheeg buu ma haysaa meel kale ma jira haddaan albaabkiisa garaaci waayo albaabkee kaloon garaaca bal ii sheeg markaas wallaahi ma jiro bas iska kayda buu ka yidhi anu kaa un baan halkaa un baan joogaay ma dhaqaaqaye u bilaabay xajkii baa la gaadhay dawaafkii buu sameeyey dawaaf alquduum labbayk allahumma labbayk yarkiina uu daba socdaa uu dhagaysanaya waxa uu ka maqlay korkiisa oo laga leeyahay labbayk wa sa'dayk waan ku aqbalay dawaqaaga waan ajiibay xajkaaga waan aqbalay 720 xajii hore aad u xajido dhan waa laga aqbalay dambigaagina waa laga dhaafay haquusan قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم حقوسا رحمة سوى واسع هني الجبن استقامة على الدين إلهي ويديسو هداية إلهي ويديسو استقامة إلهي ويديسو إلهي هنون ويديسو مر والبا وللهداية مراتب علماء لين هداية مراتب إلى هاي
hidaayadda halka ugu sarreysa waa halka ambiyadu ay gaadheen halka ugu sarreysa maanta nin walba adduunyada halka u sarreysa uu rabaa inuu ka gaadho adduunyada laakiin markay noqoto diin iyo hidaayadii alla u dhawaasho waxa uu leeyahay intaan haysta igu filan buu leeyahay uguma filno abkii laqillati zaadi wa bu'da safari Abu Hurayra radiyallahu anhu bay ku filaani weyday oo lahaa markuu dhimanayay uu ooyo maxaa loo oysaa baa lagu yidhi nabi maxamed saaxiibkii baa tahay wuxuu yidhi sahayda wata yarideeda iyo safarka ii bilaamay dheeridiisa islahayn buu yidhi safar baa qofka u bilaamaya maalintuu dhinto goormuu dhammaanayaa safarkaasi ima kolka janno loo weeciyo ima qofka marka naar loo weeciyo safarkaasi ka dhammaan ilaahay jannada haynoo weecisho insha allah dhahada marka walaalayaal kulligeen inaan toobadkeena loo baahan yahay oo diinteena islaamka ku dhagno khaasatan zamankan maanta aan joogno waa zaman alfitan fitanta ayaa badanaysa caalamka fasaadkii baa badanaya khayrkii baa yaraanaya dadkii sharka wadayna way badanayaan taariku salaagii baa ciidda ka badanaya diin la'aantii baa soo kordhaysa maanta caalamka inay ummaddu ilaahay ka sii fogaatay baad arkaysaa horumarkuna ma ahin maadadu inoo badatay horumarku waxa weeyaan dadka diinta danaynaya oo mujtamaca diiniga oo bataa horumar la yidhaahdaa marka masaajidu inoo camirmaan ee madaarista ay noo badato xifd alqur'aanku ee masaajideena xalaqaadka cilmigu ay macmuur ku noqdaan ee ummaduna dadaalka diinta ay u wada kacdo ee gabdhaheenuna muxajabaad gabadh muxajabado guri jooga markaan gabdhaheenu ay noqdaan markaasa ee markuu aadaanku dhacana magaalada qof nin oo socdo la waayo uu qofka qariibku yiraahdo dadkii mee oo la yiraahdo dadkii masaajidka galeen xilligan horumarku markaas noo bilaamaya ogaada horumarku waa kaas dadka ilaahay ku xidhan markay bataan khayr baan intaas ay noogu horeysay ogaada marka diinteena islaamka ha ka shaqeyno oo han baranno oo ubadkeena han barno oo sida diinteenu ay tiraahdo han u dhaqanno